الله ونحرسته تليه قوتد لحلباتناد قيبته تضبيلباتناد علي بن أبي طالب عبد الرحمن حجالي أيا لو قدلي آج ومانتا الدقال كسعودي كاس oo suudinta shabeellada dhexe iyo hiiraan wararka ka imaanaya halkaas ayaa sheegaya in dilka taliyaha uu geystay askari ka tirsanaa Ali bin Abi Talib waxaana la sheegay in taliyaha xilligaas uu ku amriyay ama ciidanka uu shaqo gelinayay in ay dagaalka galaan ilaa ay haatan si rasmi ah loo moogo sababta ka dambeysa dilka taliya Cabdiraxmaan Xujaale oo kamid ahaa saraakiishii firfircooneed ee ciidanka xoogga dalka xilliga dilka taliyaha uu yimid waxa la tilmaamay in howlgelin uu wada taliyaha uu na joogay halka ay xabadda ka socotay hase yeeshee waxa la sheegay in askari uu dilay kaas oo haatan gacanta lagu dhigay ilaa ay haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ku qasabtay in askarigaasi uu dilay taliyihiisa hase yeeshee maaha markii ugu horreysay oo taliye guuta la dilo waxayna 2 bil ka hor ka dhacday shabeellada hoose xilligaas oo la dilay taliyihii guutada 14aad ee Oktoobar gaashaanle Nuur Faray